الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سؤالهني ويان sida koobkoobanaynu uga jawaabayna inagoo waqtiga ka faa'iideynayna. Faaduma Muqdisho ka soo qortay su-aasheedu waxa weeye qof baa iga dhintay yar, ilmo yaroo soo dhashay ayaa dhintay in yar kadib intaan u magac bixinay ee aan u walqalay kadib magaciisii mid kale ma u bedeli karnaa? Jawaabtu waxa weeye haa. wax dembiya ma laha laba caruura oo walaalaa in isku magac laga dhigaa. laba qof oo isdhalay in isku magac laga dhigaana wax dembiya ma laha, laakiin magacu dee waa calaamad oo dadka lagu kala saaraa. sidaa daraaddeed si aanay labadii qof ee wada jooga guriga marka mid loo yeedho kii kalena aanu u moodin isaga ayaa loo kala duwaa. markaa kol hadduu kii yarka ahaana dhintayba oo sii horreeyey, kan imika nool waa u bixin kartaan, wax dhibina kuma jiro. su-aashan Ismaaciil Maxamuud baa Ingiriiska ka soo qoro, waxa uu leeyahay xaaskaygu way dhimatay, inanteedii yarayd ee aniga ay dhashay dee xoolay barh bay dhaxashay, ma isticmaali karaa xoolaheedaa yar, inantaydaa yar xoolaheeda? jawaabtu waxa weeye kol haddii aad adigii gacanta ku hayso waxaad kaga maarantana aanad haynin, iyadiina aada gacanta ku hayso waad isticmaali kartaa. ilmaha yar, agoonka, qofka waalan, xoolihiisa waxaa wax ka cuni kara qofka u shaqaynaya ee gacanta ku haya. markaa dad kale un baanad siisiinaynin, dee adigii gacanta ku hayay wax waad ka isticmaali karaysa, wixii aan ahayn meelo kale inaad maalkaa ku xadgudubto ama cid kale aada siiso. maxamuud axmed isaguna yubu ka soo qoray, wuxuu leeyahay gacmaha waxaan arkaa dadka qaarkooda markay rukuucda ka soo kacaan sidaa odhanaya, saxbaa sida saxdii waa sidaa siduu nabiguna baray sala allahu calayhi wasalam. axaadiidta saxiixeynka ku sugan waxay tilmaamayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam waqtiyadan salaada uu gacmaha kor u qaadayo wuxuu kor u qaadi jiray xadwal mankibeyn, labada garab ayuu la simi jiray. mararka qaarkoodna riwaayooyinka qaarkoodna dhagaha ayay tilmaamayaan, halkaa jilicdasa, qaarna dhagaha caaradooda. muxadisiinta waxay ku jamcinayaan riwaayaadka ama axaadiidta kala duwan, waxay isugu geeyeen in gacanta xaggeedan hoose garabka lala simo, suulkana dhegta lala simo, farahana dhegta caaradeeda. markaa qofku isagoon sidaana odhanin aayar buusaa leeyahy samica allahu liman xamida. su-aasha kale cabdirasaaq baa soo qoray, waxa uu ka soo qoray Norway. waxa uu leeyahay xaasku haddii ay igu tidhaahda ayahow miyay furmaysaa? ma licaan baa? maya licaan maaha. licaanka suuratu nuur qeybteeda hore ayaad ka dhageysan doontaa tafsiirka. licaanku waa ereya si gaara iyo waqti gaara yimaada, laakiin tani waa nooc afxumo ah iyo aflagaado iyo edeb daro labadii qof ee xaaska ahaa dhex martay oo mid ka mida kasoo fushay. waa inuu ka toobad keenaa caydaa uu caayay qofkaasi lamaanihiisa, kana raaligeliya isagana, oo labada qof dee dhacdhac iyo afxumo inay ku wada socdaan maahe, ixtiraam iyo walaalnimo inay ku wada socdaan weeye. markaa licaan maaha arrintaas, guurka waxba uma dhimaysa, laakiin waa afxumo in laga toobad keena mudan. maxamed cumar berberu ka soo qoray, waxa uu leeyahay marka khudbadda khatiibku uu wado khudbadda inuu aayaddan akhriya ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. ma waajib baah? jawaabtu waxa weeye maya, waajib maaha, laakiin salliga nebiga ayaa khudbadda dhexdeeda waajib ah. sidaasunbaa markaa ay culimadu usoo qaataan mooyaane, iyo in aayad la akhriyaana waa waajib khudbadda dhexdeeda. intaasunbay culimadu usoo qaataan mooyaane, hadduu sida kale ugu salliyo oo aayadda aanu akhriyin waxba dhib ma laha, salaadu khudbaddu waxba ka noqon may. su-aasha waxaa soo qoray Cabdulqaadir Hargeysu ka soo qoray, waxa uu leeyahay xabaalaha
ma la soo qodi karaa ama qof xabaal ku jira iyadoo la doonayo meel kale in lagu aaso? jawaabtu waxa weeyaan maya, lama soo qodi karo ilaa sabab sharciya mooyaane. sababaha sharciga ee loo soo saari karo waxaa ka mid a maslaxadda meydka. meydka wax isaga dan u ah oo maalan waxaa lagu aasay xabaalihii gaalada, waa laga soo qodiyay, xabaalihii muslimiinta lagu aasayaa. waxaa maalan uu noqday meel biyo mareena, waa laga soo saarayaa, meel kale lagu aasayaa. waxaa la aasay isaga oo aan la maydhin, ismanuu bedelin, deg deg baa loo soo saarayaa, waa la maydhayaa, waa lagu tukanayaa, waa la aasayaa. sidii uu usoo saarayba jaabir ibnu cabdillaahi aabihii, oo xabaashii intuu uga bedelay meel kale ugu aasay iyadoo cid kale uu kula aasnaa. sababaha tobaneeyo ku dhow ayaa loo soo saari karaa, laakiin kuma jirto in dhulkiisa la damaaciyo oo intoo laga saaro meel kale la geeyo. taasi sax ma aha. taasoo baryahan dambe iska badan oo dadka qaarkood intay damaaciyaan dhulkiisa ay ka saaraan ay meel kale ku aasaan. qofkan isagaa intaa yeeshay, looguma tegayo waxaan maslaxadiisa ahayn. yaasmiin su-aasheedu waxa weye garowe ka soo qortay, waxay leedahay istikfaartiiya ma israacin karaa anigoo astaqfirullah astaqfirullah akhriyaya, qur-aanka kariimkaana ma dhegaysan karaa? jawaabtu waxa weeye maya. waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. qur-aanka kariimkaa marka la akhriyo aamusoo dhegaysta. waa inaad aamusto oo aanad xawilnayn ee weliba aad dhegaysanayso. haddii xataa aad aamusantoo aanad dhegaysanaynin wanaad iska xidho. marka istikfaartana markaaga akhri gaarka ah, qur-aanka kariimka ana akhri. haddaad qur-aanka dhegaysanaysana istikfaarta jooji. looma baahna qur-aanka kariimka ah in aad dhegaysanayso adigoo wax kala wada, waayo waanad ka boganaynin. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaati waliyatadakara ulul albaab. ilaahay wuxuu tilmaamay qur-aankan inuu yahay mid barakaysan, dadkana waxaa loogu talagalay inay dhugtaan oo ay dhuuxaan macnihiisa. yuusuf xasan su-aashiisu bulcu ka soo qoray, wuxuu leeyahay tasbiixdu miyay qadarka dib dhigtaa? may qadarka ilaahay waxba ma dibdhigaan. qadarka ilaahay marka ilaahay uu go-aamiyo wixii uu go-aamiyey waqtigiisii buu dhacayaa. bani aadamka ayaa arrimahoodu ay baaqdaan, laakiin wuxuu ilaahay sii qorsheeyey ee ugu talagalay waqtigaa inuu hirgalo wax celinayaa ma jiro. nusuusta iyo daliilo aada u badanina waa tilmaamaya. muhiim laascaanaad bay ka soo qorto, waxay leedahay ma ducaysan karaa anigoon daahir ahayn oo dhiiggii caadada leh? haa, waa ducaysan karta. waxay culimadu ka doodeen lagu jumhuurulculamaa ama culimada intooda badan ay diidan yihin waa qur-aanka kariimka akhrintiisa, laakiin dikrigii kale oo dhan iyo istikfaartii, xamdigii, mid walba waad la iman kartaa adiga oo aan daahir ahayn. umulkhayr wajaaley ka soo qorto, waxay leedahay ilaaheerkeebuu dembi leeyahay dawadan la isku cadaynaya ay leedahay dembi. waa xaaraam weeye. xaaraan haddii lagu idhahdana waa shayga uu qofku markuu ka tago ajri helayo, ilaahay daraaddii uga tago. hadduu sameeyana uu cadaab iyo ciqaab la kulmayo, xaaraamkaasaa la idhaahdaa. waayo qofkii waxa uu saluugay abuurkii ilaahay, markaasaa intuu saa isu eegay buu qofku leeyahy wallaahi waan madoobaaday, inaad ilaahay ay caddaysaabay ahay, waad igu qaldantay bay ka dhigantay. ilaahayna wuxuu tilmaamay qofka bani aadamka fii axsani taqwiim inuu abuuray habkii ugu wanaagsanaa. marka wixii jirka wax laga bedelayo, mar haddii balaayo iyo foolxumo saaran oo khatarihi aanu jirin ee isagoo caadi u abuuran uu bedelayo, waa xaraam. in laga feejignaadana weytay. cudurro badanna waa laga qaadaa. markaa dadku si ay horumar u gaadhaan adduun iyo aakhiraba waa inay ilaahay markiisa qaataan. wallaahu aclam.